iyadoo lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan isla markaana hadda ay tahay 10kii ugu dambeeyay ee khayrka badnaa ee naaraha la isku xureynayay bishaasi barakeysneed ee Ramadaan ayaa jamciyadda Al-Rahma Al-Khayriya oo kaashanaysa ururka magaciisa la yiraahdo Gurmad Somali Relief oo ka dhisan dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne oo waxay soo bixiyeen isla markaana ay afur sameeyeen qaar ka mid ah dadka danyarta ah iyo waliba dadka aan haysan afurka Sheekh Abdallah waa gudoomiyaha jamciyadda Al-Rahma Al-Khayriya oo ay soo wakiisheen ururkani Gurmad Somali Relief ayaa ka warbixinaya dadkan ay afursiyeen iyo waliba shanta cisho ee ka hadhay bishan Ramadaan oo ay iska kaashanayaan afurka ururkaasi kole jamciyadda Al-Rahma Al-Khayriya oo maanta kaashanaysa Gurmad Somali Relief oo ah dalka Daaladmaayo Australia waxay dhacday in hadii la idmay ay maanta 5 cisho halkan ay ka bilaabeen maanta tahay 5 cisho ay ka bilaabeen oo ay kulay ka bilaabi doonaan oo 5 cisho dambe ay qaadan doonaan halkan hadii la idmo lagu afurin doonaan dadka anagoo muddo dheer soo wadnay afurka soo wadnay marka kulay waxaan aad ugu mahadnaqayaa walaaladeeda hadii la idmaayo naga qaatay ee yiri waxaan afurinaynaa 5 cisho u dambeysay ayaan afurinaynaa waxaan hadii la ka soo qayb galaynaa in ay hadii la idmaayo in ay kulay ka qayb qaataan Ramadaanta waxaan soo wadnay koodii man ka soo bilawnay meel kalena kama keen dadku man ka ururinay dadkana waan ku celinay waxaan doonaa ummaddu inay iskaashato oo dadka hadii la idmaayo ka haysana laga soo qaado ka aan haysanina la siiyo marka anagu jamciyadda Rahma waxaan sameeynaa hadii la idmaayo waxaan sameeynaa in aanu dadka ka qaadno hadii ka haysta ka qaadno ka aan haysanina aanu siino marka mujtamac jamciyadda Rahma Al-Khayriya waxay ku soo shaqeynaysay 14 sanadood ku soo shaqeynaysay marka waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maanta Gurmad Somali Relief oo ah dadka Australia oo aad ugu mahadnaqayno walaaladayda Ilaahay khayr ha siiyo dadka soo bixiyay iyo dadka hadii la idmaayo in soo gacan siiyay iyo dadka maanta dadka walaalahooda ku afuranay halka aad baan ugu mahadnaqaynaa sidoo kalena qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ee loo sameeyay afurkaasi ayaa ka dareen celiyay isla markaana u duceeyay dadka soo bixiyay afurkani afturka waxa noo sameysay aftur wanaagsan bay noo sameysay oo fiican bay noo sameysay dad fara badan oo ilaa Ramadaantii halkan waanu ku afuraynay waana ku mahadsanyiin Al-Rahma way mahadsantay waanu ducaynay ilaahay baanu nimada ilaahay man nimada ka gudoonay afur wacan oo fiican abuweeyeen bishii Ramadaan hadii Allah xugmaayo khayr ya nalku afuriyay afurta anagoo u mahadnaqaynay afurtii noo sameeyeen shantii bilo Ramadaan ugu dambeysay shanta iyaan ugu mahadnaqaynaa tir wanaagsan oo nadiif ay dadkan inoo sameeyaan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa halkay ka soo saareen meel wax ka khayr badan ayaan ugu ducaynay in ilaahay u geliyo marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa mid ilaahay loogu mahadnaqo aad baan ugu ducaynay ugu mahadnaqaynaa hay'adda jamciyadda Al-Rahma Al-Khayriya ayaa iyadu waxa ay soo waday Ramadaantii intii lagu soo guda jiray oo dhan mashruuca $1 ku afuri walaalkaayo afurla iyadoona shantan cisho ee dambe ee ururka Gurmad Somali Relief uu ku soo biiriyay arintani waa ku afurinayo dadka aan afurka haysan ay wax weyn ka tari doonto dadka aan awoodin inay afuraan Cabdirashiid Cabdi Wahab Hussein Universal TV Hargeysa